haweenka ku dhaqan magaalada xiriirada oo shir jiraayid ku qabtay ayaa guud ahaanba waxay ku nuucnuucsadeen xaaladda guud iyo arrimaha ka taagan magaalada Saylac iyagoo shirkooda jiraayid mahadnaq u celiyay guud ahaanba qurba joogta beesha Ciise meel kastiba ha joogan isla markaasina waxay ammaan gaar u celiyeen kuwa iyagoo kaalinta libax la ka qaatay hawlii shaqguuray ee ku qotoma magaalada Saylac hadaba haweenkan arrimahaasi ka hadlayna waxay yiraahdeen عليكم ورحمة الله وبركاته مركب ورئيسة أنا أقل عمر علمي وأدل يرتع حريرة دقمة حريرة كترسن وحن سلامة يا ولا الله يقدر بدي شوقة يقرب شوقته جاليد الصومالية بيش عيسورن يا سلامة يا يكسو جد بيش وجاسك وحن ندري يا سلام كدب وحن له هاي بوح في عم بعض قبتين دكتور وضنور دستين wax wanaagsan waa noo qabatay waxaan doonaynaa inaan naga daalin inaan naga sii jeesan mar waliba inaan soo eegtiin halkan waxaan ka salaamayaa walaalahayaga qurbaha ku nool beesha Ciise dhamaantood gabadh iyo wiil hooyo iyo aabbo dhamaan waxaan halkan uga soo gudbinaynaa sanaan kale iyo laaba walaalahayo aad baad u mahadsantihiin sida dhiiran eed maxay noo garab taagan tihiin sida ay soo sheegeen walaalaheenaba aad ayaan idinku faraxsanahay had iyo habeen waxaan niyada idinku hayneen ku dhiiranahay waa idinka intaay in ka badan waan idinka sugaynaa intaay in ka badan waan idinka joognaa had iyo habeen waxaan anagu ku dhiiranahay niyada ku haynaana waa idinka kii dhaweyte waxay TV-yada ka soo deynayaan ee isku waaninayaan afarta qaxootiga ku baxday ee badaha sii jeeday ee sharci ku bixin ee passport ku bixin ay leeyihiin Saylac iyo maxay hay'ad lug haya bandarada ka dhisa waxaasna wax aqliga galaya maaha wax aqliga galaya Saylac waxa jirtay 12 qarni dad baa ku dhisnaa ku dhaqanaa intaas soo dhan oo sanadood soo deganaa qarniga 12aad haday doonayaan iyagu 400 ee caydha lagu siiyo inay ku soo dhisaan oo dhulkooda ku noqoto wax dhacaysa maaha taana niyadaha iskaga xumeynina walaalayaal annaguna waan dhageysanayna saan u dhageysanayno inaguna u dhageysta idinku waxaad ku baxdeen sharci maalkiinaad ku baxdeen muruqiinaad ku baxdeen passport baad ku baxdeen diyaarad baad raacdeen waan ognahay 400 ee caydha ay ku qaadanayaan lagu xoreynayo dhulkeena la isku mana dhiiriyaan leenahay aabayaal ku dhahaataan leenahay iyagu waxay leeyihiin 100 salaadiin 100 duubaba 100 hilqada waxa soo dhan inagu shaqo kuma lihin ilaahay mahadi guushan inaga gaarayna alxamdulillah rabbil caalamiin waxaan idin sheegayaa nin walba dhagax waliba ilaahay meel buu dhigay dhagaxii ilaahay oo dhigay halkii oo ilaahay dhigay buu yaalaa handaad bandarad ka dhashtiyo handaad daktar ka dhistiyo handaad boorka seexataba nin walba meeshii ilaahay dhigay buu yaalaa samaroonku handay bandarad ka dhisaan hadayna ka dhisinba boorama leeyihiin boorama ka dhisaan bandarado isaaqu waa madaxtooy Hargeysa cid walba way degantaa laakiin yaale isaaq baa cidiba ma haysato Saylac Ciisaale hadii bandarad laga dhiso hadii boorka lagu daayo sidaan doonahan dhaana Ciisaale runtu walaalayaal way qaraaraatay Soomaaliland runtu waa qaraaraatay run ma sheegayaan way qaraaraatay marka waxay sheegi waayay madaxweynuhu wuxuu oran waayay Saylac Ciisaale awada hadda maqasho waa Saylac markii Saylac layna lahaa waa markii layna soo galay ay magac Saylac leeyahay oo golay horta ma jiro waxa inoogu yaala ajandaana maaha awada Saylac bay ahayd inta soo qarnay bay duwa looga inta ugaasna waa doctor Saylac maaha wax imika dhashay maaha wax aniga xitaa ila daamaha wax inta kale ka hadlaysa ka daama nin walba wadankiisa Allah u barakeeyo nin runtuna ayna qaraaraani qolo waliba haday bandarada dhisayaan haday magac bixinayaan bameeshooda ku ekaadaan handaad idinku Saylac soo dhistaan iyo handaad sida u daysataa ma Saylac idin kaale maraba kama jiro qofna wuxuunan helaynin yuunan iska dhaadicin naftiisana yuuna ku maaweedin anigu handaan iraahdo anigu Ciisaanahay handaan iraahdo boorama leeyahay daayiga ma soconayso kaboora ma joogaan duraada Saylac baan lahayn ma soconayso sidaas oo kale sida ay Hargeysa ay saaq u leeyihiin ba Saylac u leeyihiin sida boorama kada buursugu u leeyihiin ba Saylac u leeyihiin waxa aan ka dhisayna wax laga wali kara ma waxaad ka murugan kartaana ma dalkaynagaale dhulkaynagaale badaynagaale barinkaynaagaale dhismaheedna inagu inoo yaala ilaahay baana ina siiyay nin walba meeshiisa Allah u macaaneeyo السلام عليكم ورحمة الله
xuseen maxamed cabdilaahi shinina news magaalada saylac.